بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسر دوادا BCY TV iyo xalqad cusub waxaynu insha Allah ku eegi doonaa waraysi xiiso badan oo telefishinka loo yaqaano caanka ah Al Jazeera uu ka qaaday Sheikh Cabdirashiid Sheikh Ali Suufi oo ku saabsan ma garanaysaa yani ku saabsan Qur'aanka waxyiga soonka waraysigaas xiisaha badan falyatafadal mashkuuran insha Allah. wixii taaliiqa insha Allah waynu maaragtay macnayn doonaa laakiin dadka badankooda way iska fahmaan carabiga. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الشريعة والحياة في رمضان. وبرنامجك على الشريعة والحياة في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. آياتك كسابسنا رمضان كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ضيفنا اليوم هو علم من أعلام القرآن، جاب صوته الآفاق فانشرحت بتلاوته الصدور وخشعت لها القلوب. ضيفنا هو فضيلة الشيخ القارئ عبد الرشيد صوفي، المتخصص في علم قراءات القرآن وأحد أعلام التلاوة في عصرنا. intani waxa weeyaan waxa uu maaragtay faalaynaya sheekhu qofka uu yahay si dadka aan garanaynin ay u fahmaan maaragtay caalamka islaamiga oo dhan waa laga yaqaanaa sheekha marka yani waa nin maaragtay codkiisa yani waa caalim qur'aanka kariimka qiraa'aadka oo dhan yaqaana waynu isla wada garanaynaa waa caalim maaragtay Soomaali ah afka Soomaaliga ku hadla marka sheekhaasi caalimka rahimahullah ilaahay naxariista maaragtay iyo isaga inaga iyo dhammaanteen baahina wada siiyeen waxaynu ku soo dhaweynaynaa insha Allah sheekha falyatafadal mashkuuran insha Allah waraysiga. music raalli ka ahaada telefishinka iska wataa waxyaabaha dadka maaragtay hadiya jeer la iskaga salladin karo. ورحمة الله وبركاته، ويشرفني أيضا أن أكون معكم في هذه الاستضافة والتي تتكلم في الحقيقة أهم شيء في هذه الأمة على العموم وعلى الخصوص في هذا الشهر الذي نحن فيه إن شاء الله، شهر رمضان الذي خصه الله تبارك وتعالى بالقرآن. شرف بيتهاي إن هذه مرتي قاطان برنامج كان يعني أنا قولي بماركتي إذا كم هاد علينيا waxa uu markaasi sheekhu u sii gudbay in ma garanaysaa bisha barakaysan iyo mawduucii uu ka hadlayay oo uu rabay inuu markaasi ku soo daro. الكريم، كان سؤالكم عن القرآن في شهر كيف كان حال الصحابة وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مع كتاب الله عز وجل. sidee buu ahaa xaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaalka saxaabadiisa bisha ramadaanka marka la soo galo. أولا وقبل كل شيء، الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأشياء على بعض، فضل بعض الأيام على بعضها، فضل بعض الشهور على بعضها، فضل شهر الصيام الذي هو شهر رمضان على سائر الشهور. إلهي سبحانه وتعالى يعني وحيابها وأبورتي قار بقار أيو كفضلا واختيادا قوبها مقرنا ساي آدمها يعني وحوال بوحبو كفضلا إلهي سبحانه وتعالى بشتنا وحبو كفضلي بلها يماركتي واختيادا. وبين لنا رب العالمين سبب فضل هذا الشهر على سائر الشهور بسبب نزول القرآن فيه. وحيابها وكفضلي إلهي سبحانه وتعالى وماركتي كفضلي سورة محان كون هذا بشة رمضان كا وحويا
soo dejintii qur'aanka kariimka kalaamullah kalaamuljabaar uu soo dejiyey. وفضل ليلة القدر الذي أنزل فيه القرآن، لأن كما نعلم القرآن أنزل جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى كما قالوا إلى مكان في سماء الدنيا. waxa uu bisha ramadaanna ka sii fadilay habeenka loo yaqaano laylatul qadriga, habeenkaas ayuu ka sii fadilay, waana habeenka qur'aanka jumlad waaxida isagoo ah laga soo dejiyey lawxal maxfuudka waxa loo yaqaano. ma garanaysaa waa combyuutar ilaahay ma garanaysaa uu ku xifdiyey wax walba, ama sidaynu haddaynu hadalka sidaa u dhigno, haddii kalena waa lawxad wax walba ilaahay halkaa uu ku xifdiyey. taas ayaa markaasi uu ilaahay subxaanahu watacaala ka soo dejiyey kalaamkiisa oo uu ku sugan yahay, kadibna wuxuu soo dejiyey samaa'u dunyaa مرة واحدة، لأن الله تعالى خصص سورة كاملة في كتابه من أول السورة إلى آخرها لا تتكلم إلا عن ليلة القدر. waxaanu ilaahay ku khaas yeelay suurad ka mida suuradaha qur'aankiisa kariimka ah oo uu ku khaas yeelay habeenkaasi yacni sharafka uu leeyahay. التي هي سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر السورة. ففضل الله تعالى ليلة القدر على سائر الليالي بسبب نزول القرآن، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور أيضا بتخصيص الله تعالى بإنزال القرآن، نفس الآية التي تفضلت. habeenkaas bisha maadaama laga fadilay bilaha kale oo dhan, ayaa habeenkaasna maadaama qur'aanka kariimka la soo dejiyey, bishu waxay fadli ku yeelatay inay maaragtay la soo dejiyey qur'aanka kariimka. habeenkana wuxuu fadli ku sii yeeshay in isaga uu ahaa isla habeenkaas bishan ku jira ramadaan in la soo dejiyey qur'aanka kariimka ah. laakiin waa ilaa samaa'i dunyaa, kadibna halkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hore si jumle ah baa loo soo dejiyey, markii dambena tafaariiq ayaa 23 sano oo u soo degay, waa jumla iyo tafaariiq. حضرتك في بداية الحلقة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. intaas waa fahmaysaan, waxa weeye shahru ramadaan alladii unsila fiihi alqur'aan, waa bishii la soo dejiyey qur'aanka. waxa weeyaan waxaana ugu yahay hanuun dadka ma garanaysaa, hanuun buu yahay muuminiinta. جسد هذا الفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام باهتمامهم الشديد بالقرآن خاصة في هذا الشهر الكريم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له درس يومي مع جبريل في شهر رمضان. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu maaragtay la daraasayn jiray qur'aanka kariimka ah, maaragtay malakul jibriil ayuu la daraasayn jiray. saxaabada iyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam bishaasi macnaha waxa ay siin jireen muhiimadda ay leedahay. جبريل ينزل يدارسه القرآن كل يوم أو كل ليلة من شهر رمضان، حتى كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عرض عليه عرضتين. nebiga calayhi salaatu wasalaam intii hore waxa uu la daraasayn jiray malakul jibriil ayay isla daraasayn jireen, hal mar bay isla daraasayn jireen qur'aanka ma garanaysaa xilliga ramadaanka. wixii xilligii markaasi cimrigiisu ramadaankii ugu dambeeyey, nebiga waxaa la yidhahdaa 9 ramadaan ayuu soomay baa la yidhaahdaa. markaas 9 ramadaan, waayo xilligii madiine ayaa la soo dejiyey ramadaanka soonka la faral yeelay. kadibna waxa uu maaragtay xilligaasi maaragtay la daraaseeyey 2 jeer sida uu sheekhu tilmaamayo. عرض عليه عرضتين. وهذا الذي يسمى أيضا في باب فن القراءة، نتعرض له إن شاء الله في أثناء حوارنا فيما بعد.
ما ثبت من القرآن في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج بذلك ما قد قرئ أو أنزله الله فنسخه الله عز وجل، وهو موجود أيضا. وقد تجد بعض القراءات في صحيح الأخبار كصحيح البخاري ومسلم. waxaa markaasi laga saaray qur'aanka maadaama labada bandhig ay uu jiray waxa laga saaray maxaan ku idhaahdaa waxyaabihii la nasakhayay baa laga dhex saaray oo maaragtay laga dhex saaray dabadeedna waxaa loo soo reebay inta maanta inoo hadhay ayaa loo soo reebay مسلمين ولكن لا يقرأ كقرآن، والجواب على هذا أنه كان ما قبل العرضة الأخيرة. والنبي wixii markaa xilligaa ka horreeyey yani hadda maanta lama akhriyo, yani si qur'aan ahaan looma akhriyo, laakiin waxyaabaha qaarkood waxay ku sugan yihiin kutubta marka waynu sii wadana. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في القيام الذي العمل فيه هو قراءة القرآن بالوقوف، والركوع والسجود بالدعاء والتسبيح والتهليل لله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu ku dadaali jiray qiraa'ada qur'aanka iyo ma garanaysaa iyo cibaadaysiga iyo qiyaamul leylka iyo waxyaabahaas oo dhan. صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان، ونولين jiray habeenka إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله. haddii habeenka la gaadhona maaragtay tobanka dambe haddii la gaadhana wuu noolayn jiray oo maaragtay habeenadaas oo dhan wuu noolayn jiray. وشد المئزر. الرسول صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وصحابته يعني كان زيادة اهتمام في شهر رمضان، لكن القيام كان عندهم أمر اعتيادي. بل قد قال بعض أهل العلم أن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا. يعني qaar ka mid ah ahlul cilmiga waxay yiraahdeen macnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam qiyaamku isagu farad buu ku ahaa, waa sida ay culimada qaar sheegeen maaragtay iyagoo ka daliishanaya ama ka istinbaadaya meelaha qaar quraanka ka mid ah qum al-layla illa qalila oo kale. أن الله تعالى خصه بالذكر ومن الليل فتهجد به نافلة لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه. يعني wuxuu dadaali jiray ilaa maaragtay yani lugihiisu ay ku dhawaadaan inay dildilaacaan nabigu calayhi salaatu wasalaam. حتى قيل له أو قالت له أمنا عائشة وقد ثبت لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال markii laga yaabay ayaa Caaisha xataa ay weydiisay yani nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu maaragtay habeenkii ugu dadaalayo taagan yahay. Caaisha waxay weydiisay maxay miyaan ilaahay dambigaagii hore iyo kii dambaba dhaafin, maxaa kugu kalifaya maaragtay taagnida sidan u faraha badan leh iyo qiyaamka noocan oo kale ah. wuxuu ku jawaabay nabiguna calayhi salaatu wasalaam afalaa akunu abdan shakura. قال أفلا أكون عبدا شكورا. من رزقه الله شيئا من القرآن فشكره أن يقوم به، خاصة وهو في شهر الصيام شهر يعني qof kasta oo qur'aanka lagu risqana yani waa inuu maaragtay sameeyaa inuu qiyaam leyl sameeyo oo maaragtay qur'aanka uu ku akhriyo. waana siyaabaha sirta lagu hayo qur'aanka. qofku hadduu qur'aanka wax ka xifdiyey sirta uu ku hayn karaa waa inuu qiyaam leyl ku sameeyo. maalinkiina uu akhriyo wixii uu akhrin karo, habeenkiina qiyaam leyl uu ku sameeyo. شهر الله الذي فضله. ثم بعد ذلك كان الأمة كلها توالت إلى يومنا هذا يعني زيادة في الاهتمام في القرآن تلاوة وتدبرا وقياما به، خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي خصه الله تبارك وتعالى. ummaduna bishatan uu ilaahay subxaana wa tacaala u khaas yeelay qur'aanka kariimka ah ayay iyaguna sidaas unbay maaragtay ay ku socdeen oo ay ummadoo dhamina muslimka oo dhamina ay ihtimaam u siinayeen sida taraawiixda, tahajjudka, qiyaamul leylka ay u siinayeen. waynu sii wadaynaa insha allah. بالقرآن وللقرآن لذة خاصة
في ليالي رمضان، إذ جعل الله تعالى الجناحين إن صح التعبير الذي يطير به المؤمن إلى ربه، جناح الصيام والثاني هو القيام. الصيام يعني waxaa jira athar sheegaya ma garanaysaa ama axaadiis sheegaysa inay maaragtay qiyaamada ay kuu noqon doonaan soonkii macnaha sidii baalalaad ku duusho oo kale inuu kuu noqon doono. atharada noocaasina way soo arooreen iyo ma garanaysaa qiyaamuleylkii isaguna inuu maaragtay noqonayo yani janaaxayn inay noqonayaan sida uu sheekhu tilmaamay. جعله الله فرضا والقيام ندبه إلى الأمة ولم يفرض عليهم، ولكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وطبعا نبينا عليه الصلاة والسلام واكي يري نبينا واكي عليه الصلاة والسلام واكي يري من قام يعني كي ماركتي صومة كي صومة من صام رمضان إيمانا واحتسابا قفكي إسقو إيمان له صومة احتسابا كنا حساب تميا أجر كاين إلهي السين اليوم ماركتي كل حساب تميا وإن ماركتي إلهي سبحانه وتعالى وحدافة يا دم بيجيسي هوري إيو كيسي دمبي غفر له ما تقدم من ذنبه. لها وقع عند من يعرف معنى المغفرة ويعرف ما معنى أخذ الله عز وجل والعقاب، ويتيقن على لقاء الله وأنه عرضة للخطر الشديد، كونه خالف ولو مخالفة بسيطة يستحق بها نار جهنم إن لم تدركه مغفرة الله. هداني قفك إنسان كاشو قارين يعني دنبيجيسي هورا لدافيا كيس دنب ما هالكاسن صحيا المداس كيسي هورا لدافيا دنبيجيسي هورا يا لدافيا كي دنب وإنه ده توبت كلا يوحكر وباهي هاي مركا كيسي هورا قفك لدافيا دو ماركتيس رمضان كينا صومو وماركتي سيدي للربي هو صومو شروطه هذه يا أركانتي دي يوم قرنسا إلى لنتي إنديه يا أفتي يا دكتي يا واحد اللي إلى لنيه ومركز يقف قدره تقوضي يا قلبه وماركتي يعني أنا كنت شرين شركي أو قدره مركزي مركا يعني قف كاسي دم بيجي سهرة على نافيا. كانت الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين نزل فيهم القرآن في مدحهم وثنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يفوتون أبدا فرصة للمغفرة، ولأن الله حرضهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. آخر آية دي سورة الحديد كجرتي ومركز وسارعوا إلى مغفرة يعني آيadaas buu soo akhriyay macnaha u tartama markaa iyaguna aad bay ugu dadaali jireen buu leeyahay saxaabada dhaqankoodii maadaama la weydiinayo oo xalqada ay ku saabsantay siduu nebigu iyo calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu ay ula tacaamuli jireen ma garanaysaa ramadaanka xilliga ramadaanka ama bishaasi. وها هنا يعني حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ولأننا في شهر المغفرة وطلب المغفرة تحضرني قصة maadaama aynu ku jirno bishii barakaysnayd ramadaanka anigoo ka baqaya inaan inuu yani hadalku bini aadamku yani qaybiba qayb bay ku ilowsiinaysaa adigoo wax doonayaad rabtaa inaad garanaysaa wax kale ku ilowsiin karaa marka anigoo taa ka faa'iidaysanaya ayaan qisadan sheegayaa. يعني الصحابة خصوصا الأنصار أنهم كانوا أهل زرع وكانوا يجلبون المياه على ظهور النواضح والإبل من مكان بعيد فيسقون به زرعهم. يعني وهاي صحابة وحيا هاين ضد ماركتي يعني بيها كسو نعم سنشري ميل دروكسن ومركز سوق قادان تبدأ بيرها كسر عنشري. فشق عليهم هذا الأمر فلما كثر عدد المسلمين. انت أصبح كوي رأت كاتي مركا ضدكي ميرتي هوشا كجري جري لكن مركي أي بطين يعني تردي مسلمين تا اللي سو هاجرين. بعثوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يمدهم بقوة من الرجال يحفرون خندقا إذا سالت الأمطار في الجبال سالت في هذا الوادي فاكتفوا بمؤنة مجيء الماء من مكان بعيد.
waxay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiisteen in uu maaragtay yani siiyo gurmad rag ah oo markaasi ka soo jeexaya meelaha uu roobku ku da'o biyaha ka soo jeexaya yani gacamo soo samaynaya oo gacmadaas markay soo sameeyaan ay markaa biyihii keenayaan si maaragtay looga kaaftoomo biyaha meesha fog xoolaha lagaga soo qaadayo. فكرة جميلة جدا. فبعثوا أشخاصا مهمين من كبارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم كعادته وقال مرحبا بالأنصار مرحبا بالأنصار. نبينا عليه الصلاة والسلام هذه أدبون سولوي. سبقهم فقال والله لا تسألوني اليوم شيئا هو عندي إلا أعطيتكموه ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطاكم إياه. وحونا نبي كوير عليه الصلاة والسلام وسود ويسيد عادة سيد بن آدم كنا وسود ويجري dadkii ansaarta ahaa ee nebiga ka warrabay gurmadkaas raggaasi ay gacmada ugu soo jeexaan waxa uu ku yidhi maaragtay wixii aad weydiisataan anigu haddaan hayo waan idin siin wixii ilaahay uu hayana ilaahay baa idin siin karaa bal waynu eegaynaa. فاستوقفوا كلمة ولا أسأل الله لكم شيئا استوقفتهم كلمة ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطاكم إياه فتشاوروا مرة أخرى أو سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرنتها مركو لكن إلهي وحي ومارك يسقوا هي أنا ويدين ويدين ما يمعناها يعني يدين كويديست أبو مارك أساسه كولا مركا أرنتها سي ويكوات كاتي نمانكي ماركته وكلمة النبي يقول ما مقلي سين بيد هذين عليه الصلاة والسلام. المغفرة انتهزوها فرصة وسلوه المغفرة. قالوا يا رسول الله جئناك نطلب منك أن تسأل الله لنا المغفرة. قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأبناء الأنصار. marka waxay ku yiraahdeen okay markay dib isugu noqdeen bay warta bal nabiga kaleey sallallahu alayhi ilaahay dambi dhaaf weydiisano macnaha marka hore yani markay arrintu ku adkaatay kadibna nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam dambi dhaaf buu maartay uu weydiiyay nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam. قومهم ينتظرون منهم الجواب فرجعوا لهم بالمغفرة قالوا جئناكم بخير مما طلبتم جئناكم بالمغفرة. العجيب الذي يراودني dadkii markaas soo diray raggii doonayay in ciidan la siiyo oo la soo qodaan gacmada iyo waxay markay ku laabteen bay ku yiraahdeen waxaanu idin la nimid khayr iyo dambi dhaaf baan idin la nimid in garanaysa dambi dhaaf la ilaahay idin siiyay macnaha waa idinku shaqaysta oo maaragtay wixii shaqaa maaragtay qabsada hadda dad ahaan yani inuu qofku shaqaysto weeyaan macnaha ka meesha ku jirta waa taas. وأنا أقرأ هذه القصة والقصة في السنن معروفة يعني هؤلاء ما فاتهم أن الله قادر على كل شيء. الذي فجر الأنهار كالنيل والفرات قادر أن يفجر لهم. وهنا تدخلت قدرة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطاكم إياه وكانوا معناها wuxuu leeyahay waxa meesha soo gashay qudraddii ilaahay baa soo gashay awooddii ilaahay baa soo gashay meesha marka nabiguna taas ayuu maaragtay ayuu sheegay markii hore marka waa si wadana insha Allah. يريدون عددا بسيطا من الرجال وخندق ونهر صناعي بسيط يعني. waxay iyagu doonayeen meesha waxaad moodaa waxyaabaha qaar in la isla yar fahmi waayay baad moodaa yani iyagu waxay doonayeen niman raaca oo maaragtay u soo jeexa kanaal u soo jeexa marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam yani isagu waxa weeyaan maqfiro ayuu maaragtay markaasi u weydiiyey marka halkaa waxaad moodaa isfahmi waa yar inuu ku jiro walcilmu cinda allah. فلما لم يطلبوا أن يفجر الله لهم نهرا maxay macnaha u weydiisan waayeen in ilaahay uu webi u soo jeexo. هم الذين يقرؤون أن الله تعالى عندما استسقى موسى لقومه ما أنزل ماء من السماء وإنما قال له اضرب هذه العصا بحجر أملس waxaa markaasi soo qaatay sheekhu qisadii ku saabsan iyagoo akhrinaya qur'aankii ay ku jirtay qisadii nabiyullaahi muuse calayhi salaam
إن إلهي سبحانه وتعالى ودقح بيو uga soo saaray ilaahay wuu awoodaa inuu kuwana iyaga halka u soo mariyo biyo idina ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegi mayso isaga yani ilaahay wuu awoodaa iyaguna way akhriyeen qisadaasi ku saabsan nabiyullaahi muuse oo dhagaxa biyaha looga soo saaray بجست وفي سورة أخرى فانفجرت منه 12 عينا نبي موسى وهي قصدي لبيه طبنكا ما garanaysaa ilood dhagaxa uu biyaha uu ilaahay uga soo saaray dhagax qala waa mucjiso weeyaan cid samayn karta arrintan oo kale ma jirto aan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dhagax biyo ka soo saaro علم كل أناس مشربهم ولكنهم يفضلون المغفرة على كل. عموما الصحابة رضي الله عنهم كان حرصهم الشديد على هذا، فالوسيلة للوصول إلى مغفرة الله القيام بالقرآن في الليل وصون الصيام. waxa ku gaarsiinaya maadaama ay saxaabadu garanayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala maghfiradiisa iyo dambi dhaafkiisa waxa uu maaragtay uu yahay ay garanayeen iyo sida waqtigan ay maaragtay ugu dadaali jireen inay maaragtay dambi dhaafka iyo khayrka ay ugu dadaali jireen ayay maaragtay arrintaas oo dhan ku muujinaysaa في النهار. قلت فضيلة الشيخ إن الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد اهتمامهم بالقرآن في شهر رمضان. أحيانا يأتي الشيطان فيلبس على البعض ويحول بينهم وبين التوبة في شهر رمضان والرجوع إلى الله عز وجل، فيقول إنكم يعني لا يليق بكم أن تكونوا من عباد رمضان، تظل غافلا طول العام ثم تأتي في رمضان وتفتح المصحف تنفض عنه الغبار وتبدأ في ختمة فيقعد بهم الكسل في ظل هذه الشبهة، بينما هي من علامات الصحة معرفة الله عز وجل وارتفاع الهمة أو علو الهمم وازدياد الطاعات في شهر رمضان. صحيح. هل waxa uu soo faalleeyay uu yiri yani xilliga ramadaanka ka hor xilliyada qaar waxa maaragtay shaydaanka maaragtay yani xilliyada aanay ramadaanka ahayn oo kale ayaa shaydaanka oo kale wuxuu ku ridi jiray maaragtay dadka sida caadada iyo dhaqanka u ah maaragtay inay maaragtay yani gaabiyaan wixii ma garanaysaa wixii la rabay inay ka gaabiyaan laakiin se xilligan ay markaasi boorka dib uga jafaan qur'aankii iyo ma garanaysaa ay dib boorka uga jafaan xilliga ramadaanka marka arrintaas su'aashu way soo socotaa marka. هل هذا صحيح؟ كما تفضلت، هي انتهاز فرصة أعطاك الله إياه. يقال أنا يعني su-aashiis waxay ahayd marka arrintaasu ma sax baa oo maaragtay la sheego waxaa laga yaabaa inay arrintu arrin mashhuura tahay waxyaabaha qaar waxa la yidhaha waxaas waa mashhuur waa macnaha wax dadku ay inta badan ku sheekaystaan marka wariyuhu wuxuu weydiinayaa arrintaasu ma run baa yani male arrintaasu waa xaqiiq ma laha isagu wuxuu leeyahay arrintaasu ma run baa marka shiikhuna wuxuu leeyahay fursad weeyaan ramadaanku maaragtay uu ka jawaabaya waa eegina ولربما إن شاء الله تكون صحيحة أن ليلة القدر ولا يا بابا إني صحيح تاي حقا أو دي وح والبا ما ركتي لما وذا وقان كرو لكن والعلم عند الله حيابها قار التي فيها أيضا خص بأن الله يغفر لمن قام فيه، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، كانت تمر إن لو دم بدافع يقفك هديئو أبينك ليلة القدر وما ركتي isu taago salaada oo markaasi qiyaam sameeyo qiyaam leyl haduu sameeyo in loo dambi dhaafayo waa sugantay macnaha على الأمم السابقة كل 100 عام مرة habeenkaas waliba wuxuu soo mari jiray ummadihii inaga horeeyay yani boqolkii sanaba hal mar جعل الله تعالى لعلمه أو لقدره بهذه الأمة أعمارهم قصيرة جعل لهم في كل سنة مرة. إلهي سبحانه وتعالى مركا وحكمة بدن yahay ummadan maadaama cimrigeedu ba gaaban yahay 100 sano ba aanay inta badan ba gaarin majority-gu 100 sano ba ma gaarin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sameeyay marka iyaga in sanad walba looga dhigo laakiin dadkii hore kumaan kun sano ay noolaan jireen marka cimrigeedu ba dheeraa laga yaabo inay 20 ramadaan soo gaaraan 200 sano ay noolaadaan 20 ramadaan inay soo gaaraan nabiyullaahi maxamed oo dadka ba ugu khayr badnaa 9 ramadaan baa la yiraahdaa uu soomay waayo ramadaanka waxa la yiraahdaa wuxuu soo degay waxa la faral yeelay maxay xilligii ما garanaysaa dagaalkii Badr ma garanaysaa xiliyadiisii فكون الإنسان يقبل على الله في شهر رمضان ويتوب إلى الله ويستغفر الله
هذه هي البوابة اللي يدخل بها إلى الله. ولربما بالتأكيد لو أخلص في هذا الشهر وأقبل على الله، الله تبارك وتعالى يفتح له باقي الشهور كلها. بركات ما يأخذه من شهر رمضان هي التي تمشيه إن شاء الله فيما بعد، وهذا الذي رأيناه. بركة laga helayo bisha Ramadaan waxa weeyaan maaragtay yani qofka noloshiisa dambe ayay la sii soconaysaa oo baraka la socota bisha tan Ramadaan. marka Ramadaankana markuu yimaado qofkii loo dambi dhaafo isagoo ma garanaysaa loo dambi dhaafay buu sii soconaya sii noolaanaya hadii cimrigu saamaxo. تجربة أن الله تعالى قلب أحوال كثيرين ببركة شهر رمضان وإقبالهم على الله، فانقلبت أحوالهم إلى أحسن حال بفضل الله تعالى. dadyow badanna xaalkoodii markii ay Ramadaanka ka soo baxeen ayay hagaageen oo Allah ayaa waxyaabo badan oo tajribe ah. فضيلة الشيخ، كيف عن نفسك أنت كيف تستعد لشهر رمضان وكيف تستقبل هذا الشهر؟ طبعا ربما في الأيام العادية، هذه الأيام فيها كورونا وكثير من المساجد الصلوات فيها مقتصرة. maadaama xilli karoona lagu jiro adiga laftaadu sidaad ugu diyaar garowdaan Ramadaanka marka sheekha ma bay ahayn su'aasha ay weydiiyo laakiin waa iska dhageysanay على زمن معين. صحيح. والله هنا يعني عادة يعني كما هو معلوم يعني منذ الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحين، وأدركنا مشايخنا علماءنا خاصة الشيخ الوالد رحمة الله عليه الذي تربيت على يديه، كانوا يتركون كل شيء في شهر رمضان إلا القرآن. waxa uu sheekhu yiri marka anigu dadkii aan soo gaaray sida aabahay oo isagu gacantiisa igu soo tarbiyadeeyay wuxuu soo baray marka bisha la gaaro amalada kale oo dhan gacan dhinac buu iska dhigi jiray oo marka wuxuu yani firaaqoobi jiray quraanka kariimka iyo maaragtay cibaadada. حتى وإن كان هذا الشيء شيء من الأعمال الطيبة والعلوم الأخرى، سواء كان في التدريس في الفقه ولا في الحديث، يتركون هذا كله جانبا ويقبلون على القرآن الكريم. وهذا الذي أنا حتى دروستا كله سida fiqiga iyo waxyaabaha kale culumta kale yani dhinac bay iska dhigi jireen oo bisha waxay fasax bay ka qaadan jireen oo maaragtay quraanka ayay maaragtay ay u soo faaruqi jireen. waxaan filayaa inuu waraysigu dheer yahay marka intaas baa inaga filan. muhiimaddu baynu rabnay inuu ka eegno in maaragtay ay muhiim tahay in sidii dadkaasi hore loogu soo maaragtay loogu diyaar garoobo Ramadaanka iyo waxyaabahaas oo dhanba. ugu dambayna waxaynu eegaynaa dhinaca sixada ama caafimaadka oo maaragtay tajaarub lagu sameeyay Ramadaanka ayaynu eegi doonaa insha Allah. waxaa halkan ku sugan ma garanaysaa cilmi baare Japanese oo maaragtay yani baaritaan ku sameeyay Ramadaanka ama soonka ayuu baaritaan ku sameeyay. marka kaas baynu in yar isagana wax yar ka eegi doonaa insha Allah iska soo khatimaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي قناة كوكب الأخبار. الصيام قبل كل شيء هو فريضة من الله تعالى على المسلمين، وهو تطهير للروح والجسم، وقد أجرى marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh buu yidhi wacalaykum assalaam. kadibna wuxuu inoo sheegay inay soonku yahay fariido maaragtay uu ilaahay faral yeelay. kadibna waynu eegi doonaa. العلماء بحوثا لمعرفة ما يحدث للجسم في فترة الصوم، فاكتشفوا waxa ay markaa dadka cilmi baarayaashu ku sameeyeen baaritaan soonka ayay ku sameeyeen الكثير من الأمور المذهلة والمدهشة. خفض الوزن waxaana ka soo baxay arrimo aad u yaab leh oo runtii aad u waaweyn. أثناء الصوم، الأشخاص الذين يصومون بشكل منتظم تتخلص أجسامهم من الوزن الزائد، حيث dadka markaasi sooma had iyo jeer miisaankooda yani hoos ayuu u dhacaa oo maaragtay wasnigooda hoos buu u dhacaa. أن الجسم عندما نأكل بشراهة يخزن الدهون الزائدة،
ولكن عندما نمتنع عن الأكل لفترات معينة فإنه يتأقلم ويتوقف عن تخزين الدهون حيث waxaa markaasi la ogaaday maadaama markuu qofku soomo in badan maaragtay markuu soomo maaragtay waxa yani cuntada aynu cunayno jirka ayay waxay siinaysay maxay yani waxay siinaysay waxa loo yaqaano allahumma salli ala maxamed yani baruur bay jirka siinaysay iyo energy bay siinaysay marka baruurtii iyo energygii ayaa markii uu soomay qofkii waa ka ma garanaysayay wixii jirkiisu kaydiyey ayay leeyihiin ayaa baxaya oo maaragtay baruur iyo waxyaaba aan caafimaadkiisa qofka u fiicnayna ayaa ka baxaya meesha in yar baynu sii wadanaa insha allah يستهلك كل السكر والدهون المخزنة من أجل الحصول على طاقة إضافية. الصوم يعزز المناعة. في عالم ياباني اسمه يوشينورو أوهوسومو، ده حاصل على جائزة نوبل عام 2016. يوشينورو أوهوسومو كان البحث بتاعه عن أثر الصيام على صحة الإنسان. waxa uu baaritaan ku sameeyey buu yidhi ninkaasi odayga ah oo jabaniiska cilmi baaraha ah wuxuu yani ku sameeyey soonka iyo saamaynta uu ku yeesho jidhka aadamaha. ملخص هذا البحث أن هذا الصيام عندما يجوع جسم الإنسان فبيحصل في حاجة النظرية اللي هو قدمها اللي هي الالتهام الذاتي. الالتهام الذاتي بتقوم خلايا جهاز المناعي بالتهام الخلايا برضه اللي هي الضارة. waxyaabaha ayuu tilmaamay markaasi marka uu qofku yani soomo jirkiisa waxyaabaha sida sunta iyo waxyaabaha ah maxaan ku idhahdaa allahuma salli calaa maxamed sonkorta iyo waxyaabahaas oo dhan baa ka baxaya. الخلايا الدهنية الخلايا المناعية القديمة والمتهالكة وبينشط الجهاز المناعي على هذا. قال لك ده له أثر عظيم. waayo badanaa bini aadamku waxay qaataan cuntooyin bay qaataan cuntadaasi waxaa lagu beeraa yani yani waxaa jirta waxyaaba lagu buufiyo geedkii wuu qaadanaya waxyaabihii oo kale sidii sun ahaan bay u gelaysaa geedkii cuntadii iyo midhihii uu samaynayay geedkuna way soo raacaysaa waxyaabahaasoo kale sun bay waa waxyaabaha sunta ah weeyaan markaasi jirka waxaana ka saara soonka ayaa ka saara iyo sonkorta iyo allahumma salli calaa maxamed subagyada uu kaydiyo jirka bini aadamka waxaasoo dhan soonka ayaa ka saara. في محاربة السرطان هيكون له يعني الأطباء بيقولوا كده هذا البحث بتاع الالتهام الذاتي هيكون له أثر عظيم في محاربة السرطان، في محاربة هانتنجتون كوريا، في محاربة الباركنسونيزم. هانتنجتون كوريا دي نوع من أنواع عدم الاتزان بيصيب الأطفال ويفضل معاهم، والباركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش وكذلك. marka wuxuu tilmaamay in macnaha cudurka kansarka loo yaqaano oo kale in ma garanaysaa yani uu ka dhasho sumahan bini aadamka jirkooda ku jira inuu ka dhasho suntaasi oo kale inuu ka dhasho maadaama uu suntaasi ka dhasho soonkiina uu markaasi saamaynayo unugyada uu saamaynayo yani wuu safaynaya suntii buu ka safaynayaa marka waa waxyaabo cilaaj ka ah ma garanaysaa ama daawo ka ah waxa loo yaqaano cudurrada oo kale sida saradaanka الزهايمر والشيخوخة. waxaa kale uu dawo ka yahay soonku shaykhuukha gabowga iyo cudurka alzheimer loo yaqaano waa nooc ka mid a cudurrada oo alzheimer iminka magaciisa loo bixiyey oo markaasi qofka ilowshiye iyo wax uu ku dhaco. هذا الرجل قال لك ده البحث ده بيفتح مجال لمحاربة هذا، انه اكتشف الجينات اللي هي مخصصة لهذا الامر. فكيف ان الصيام بيقدم لنا هذه الفوائد؟ من يصومون لا يفقدون الوزن فقط بل ايضا يحمون انفسهم من عديد الامراض، حيث ان الصيام يعزز عمل جهاز المناعة. وقد اجرى العالم الامريكي مارك ماتسون دراسة اظهرت ان الصوم ينشط عمل الجهاز المناعي وقدرة الجسم على استعادة الخلايا التالفة. أنا كنا وحويا ميت كلا أو أمريكانا باحث كلا علم بارك كلا أو يسجن أمريكانا وحاول يسجنا باري
يعني أثرك أو كي يلانيو ماركتي ديفشيتكا iyo systemka qofka ma garanaysaa khalaayada waxa loo yaqaano seliska bini aadamka waxa uu ku yeelanayo waxa uu markaasi tilmaamay in uu maaragtay ugu fiican yahay soonku. كما أن بعض التجارب التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن النظام الغذائي المصاحب للصوم يخفض نسبة الكوليسترول واحتمالات الإصابة بزهايمر ويؤدي في النهاية لرفع مستوى الطاقة. إن waxyaabaha sida Alzheimer-ka oo kale cudurkaasi iyo cudurrada kale ee la midka ah oo dhan inuu maaragtay uu daawo ka yahay. ومتوسط العمر المتوقع. كما أن التجارب أجريت على الفئران بعد إخضاعها للصوم أظهرت أنها استفادت من انخفاض الإصابة بالتهابات الأنسجة والانخفاض في سكر الدم أيضا. waxaa lagu sameeyay oo kale waxaa kale oo lagu sameeyay waxa loo yaqaano maxaan ku dhahdaa faaraanka ama jiirka oo kale ayaa lagu sameeyay qaarna waa la gaajaysiiyey qaarna waxbaa la siiyey markaas waxaa ka soo baxday natiijo la yaab leh kuwana cuntadun baa loo dhigay markay doonaanba way cunaan kuwa kalena waxay noqdeen markaasi caafimaadkoodii baa hoos u dhacay kuwii mar walba cuntada cunayay kuwii cuntada laga gaajaysiiyey laga soomiyeyna waxa weeyaan caafimaadkoodii baa aad u fiicnaaday tan waa iska xayeysiis. وسي وضعنا إن شاء الله أنت ستسوق بيننا بإذن الله الكريم. ما هو أثر الصوم على جهاز المناعة؟ وما هو أثر الصوم على صحة الإنسان كصورة عامة؟ الكلام مش لنا إحنا ولكن الكلام لجامعات غربية مثلا زي جنوب كاليفورنيا إليونز جامعة برلين بل اليابان وعالم ياباني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2016. في جامعة جنوب كاليفورنيا عملوا بحث. البحث ده بيدرس أثر صيام 3 أيام من كل شهر لمدة 6 أشهر على صحة. waxaa leeyahay jaamacad fara badan oo maaragtay Mareykanka iyo meelo badan oo kala duwan ku yaala ayaa maaragtay waxay sameeyeen baaritaanay sameeyeen baaritaanada waxaa ka mid ahaa in 3 casho oo bishii la soomo asarka ay ku yeelanayso ama saamaynta ay ku yeelanayso jirka bini aadamka saamaynta ay ku yeelanayso ayay baaritaan ku sameeyeen marka sida jaamacadda California oo kale. صحة الإنسان 3 أيام من كل شهر لمدة 6 أشهر على صحة الإنسان. وأنا مدة 6 bilood baa lagu sameeyay oo markaasi la eegayo sixada qofka ama caafimaadka qofka yani in 3 maalmood ka soomo bishii maaragtay muddo 6 bilood oo sidaa ku wado ayaa maaragtay baaritaanka lagu sameeyay bay leeyihiin. وخرجوا بهذه النتيجة اللي هي بيقولوا عليها 8-16. ايه 8-16 ديت؟ waxa weeyaan maxaanay soo saareen markaa natiijadii bay soo saareen baaritaankaasi. قال لك ان الانسان لو صام امتنع عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة 3 أيام من كل شهر لمدة 6 أشهر ايه اللي بيحصل؟ بيقول البروفيسور فولت معناها marka laga soomo cuntada iyo sharaabka muddo 16 saacadooda 3 maalmood bil walba muddo 6 bilooda natiijadii waa tan si wacan loo dhageysto. لونجو بنفس النص كده بعد صيام 3 أيام بتصدر تعليمات للجهاز المناعي بالتهام كل الخلايا الهرمة والتالفة في جسم الإنسان. dhammaan yani unugyada maaragtay difaaca jirka iyo yani bini aadamka jirkooda waxa ku jirta unugyo had iyo jeer halis ku ah waa waxyaabaha halis ku ah iyo waxyaabo difaacaya yani waa bakteeriyada xun bay yiraahdaan iyo bakteeriyada fiican bay u kala yaqaaniin qaarkood marka kuwaas oo kale ayaa kuwii fiicnaa ay quwadaysanayaan kuwii qofka jirkiisa difaacaya baa quwadaysanaya natiijadu waa taa. 2
وتصدر تعليمات بإخراج أو بإنتاج خلايا دم بيضاء جديدة ذات كفاءة أعلى وعمر أطول. waxaa markaa uu qofkii yeelanayaa oo dhalanaya xilligaas soonka ah ee 3 casho la soomayo unugyada difaaca jirka, unugyada cadcad loo yaqaano oo cimrigooduna dheer yahay, awooddooduna ay badan tahay oo caafimaad qaba. 3 تصدر التعليمات للخلايا الجذعية، ودي أهم خلايا في جهاز المناعة، ستيم سيل. تصدر تعليمات للخلايا الجذعية بإنتاج خلايا جذعية جديدة تقوم بوظيفة أفضل من وظيفة الخلايا السابقة. ده يعني unugyadii ama selliskii waxa loo yaqaano selliska weeyaan, ama unugyada loo yaqaano ayaa kuwa cusub ayaa u dhalanaya oo maaragtay jirkiisa difaacaya. kuwii hore ee gaboobay ama daalay ama kuwii waxaasuna way ka baxayaan meesha. waa saddex kaliya oo macnaha la soomo, macnaha casho oo la soomo ayaa intaas faa'iidada intaa leeyahay. جامعة جنوب كاليفورنيا، بحث موجود في جامعة جنوب كاليفورنيا. الصوم يعزز التفكير. كثير من الذين يصومون يشعرون بتحسن كبير في وظائفهم الذهنية ووضوح في التفكير، حيث أن الجسم يبدأ بتوفير بعض الطاقة التي كانت تصرف في الهضم، ونتيجة لهذا التحول يشعر الإنسان بأن جسمه خفيف وأكثر نشاطا، ويصبح نومه أفضل. waxyaabaha maaragtay hagaagaya waxaa ka mid ah inuu qofka hurdadiisa oo kale inay hagaagto, macnaha marka uu soomo kadib inay hurdadiisu hagaagto, inuu maaragtay qof nashaad leh inuu yeesho, macnaha firfircooni inuu yeesho. وقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا لأحد كبار الباحثين الألمان في الطب يقول فيه أنه استخدم الصيام لمساعدة مرضاه المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم. nin dhakhtar ah oo maaragtay dadkiisa ku daweyn jiray soonka ayaa isaguna jiray. nabiguna waa kii calayhi salaatu wasalaam maaragtay soonka uu maaragtay isagana uu ka hadli jiray. ilaahayna subxaana wa tacaala waa kii maaragtay wa an tasumuu khayrun lakum waa kii lahaa inaad soontaan baa idin khayr badan. marka nin baa jira isaguna dhakhtara oo maaragtay ku daweeya dadka uu daweynayo inay soomaan. أمراض البطن وصداع الشقيقة والتهاب المفاصل. وورد في المقال أن الصيام أحد أكبر التوجهات التي برزت في السنوات الأخيرة لخفض الوزن، فعندما نأكل فإن أجسامنا تفرز أنسولين، وهو أمر يعيق العملية التي تسمى الالتهام الذاتي، التي تقوم بواسطتها الخلايا بتفكيك المكونات القديمة المحطمة لكي تطلق. معناها waxa weeyaan markaynu cuntada cunno waxay samaynaysaa cuntadu macnaha sonkor bay jirka ku samaynaysaa ama insulin bay samaynaysaa. insulintaas markaad soontona hoos bay u sii dhacaysaa. marka intaas baynu insha Allah iskaga soo gabagabaynaynaa. على أي حال waxa weeyaan soonku waa caafimaad insha Allah biidnillaahi kariim. ilaahay ha inoo fududeeyo, soonkana ha inaga aqbalo, ikhlaasna ha inooga dhigo, dawana Allah ha inooga dhigo. hada wabillahi tawfiiq. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.